بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. ورغيان وحنات السعودية من شركة ونفسها كالسعودية ودولة السودان خاصة مقالة سكتوكان ومعرفة السدحات إياه محاضرات الثوار إن شاء الله تبارك وتعالى ونرجين دون محاضرات إن نقول دون محاضرات العاوسة قيمة فرضنا أولى ضدك مسلمين تمام دول محاضرات الأول كانوا يقولون دولا لا صعدك ضدك ولا أحسن لا صعدك ضدك ولا أحسن وحاولوا يجدوا على شيخ أن أنا متقامان شيخ مصطفى حاج إسماعيل فليتفضل مشكورا وجزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درس كمان تصورات وشاغي لقون ديوح كسب سيسين هي الجليس الصالح أما الصاحب كفي عنه أما مجالسة la fadhiisiga dadka wanaagsan sidaynu wada ognahay qofka bini aadamkii waxaa la yidhaahdaa bitabicihi aw bitabicatihi waa ijtimaaci waa social. qofka bini aadamkii kama maarmo ciduu la xidhiidho la sheekaysto humuumtiisa iyo afkaartiisa la wadaago wakhtigiisa uu ku qaato. kama maarmo baa la yidhahdaa waxaa isdhexgalka iyo wada socodka loo yaqaano. bale waxaynu naqaanaaba inay jiraan xanuuno maanta la yidhahdaa maradu tawaxud aloneness. maradu tawaxudku waxay yidhahdaan waa xanuun dadka ku dhaca oo nooc depressionka ka mid ah oo keensada qofka bini aadamka inuu dadka ka fiigo oo ka fogaado oo kali noolaado. qofkaasi waa qof xanuunsanaya ba yidhahdaan. yani mar hadduu qofku keli joogo oo ka fiiga dadkao dhan oo isku dayo inuu keli noolaado waa nooc xanuunka ka mid a. maadaama kelinimada inteeda noocyaadkeeda badan lagu calaamadiyey xanuunka waxaad garanaysaa qofka dabeecadiisa fiicani ama wanaagiisu inuu yahay inuu cid la noolaado, cid la saaxiibo, cid la socdo. si kale markaynu eegno xataa xeer ciqaabeedka bini aadamku uu dejistay waxaa ka mid ah waxay yidhahdaan alxabsi alinfiraadiy. jeelka dhexdiisa jeel kale kusii yaalla oo qofka jeelka loo taag waaye xabsiga ku jira laakiin xabsiga ku rabshad bata ayay waxay sii geeyaan xabsi kaloo la yidhahdo alxabsi alinfiraadi. xabsi keligaaya oo aanad cid arkayn, cid maqlayn, cid la hadlayn, cid la noolaanaynin. ama mararka horaabay dowladaha adabagi dadka bar kusii xukumaan qofka in la geeyo xabsi infiraadiya. yani waxaad dareemaysaa in dadka lagaa fogeeya inaan cuquubatay punishment, cuquubo qof lagu ciqaabo inay tahay qofka keli la yeelo. walidalik baa xabsiyadii waxaa laga yaaba inaad aragto xabsiyada dad ku xidhan oo qof keligii xidhan oo keligiisa la hadlaya ama qaylinaya ama buuqay markuu hadal u baahday ama cid ula hadla ama cid ula sheekaysta uu waayey. dadka qaarkoodna way kuga waashaan marka xabsiyada noocaasiya lagu rido. taasi macnaheedu waxay tilmaamaysaa qofka bini aadamka inaanu ka maarmin jaliis ama saaxiib ama cid uu la noolaado inaanu ka maarmin. waa min tabiicati lbashar baynu leenahay. fi lqadam ama waayadii hore jaliisku inta badan wuxuu ahaan jiray mid keliya ama nooc qura. wakhtigan dambe casrigaasee jaliisku u tiro badan yahay bay yidhahdaan companion, saaxiibku. waagii hore jaliisku wuxuu ahaan jiray bay yidhahdaan mid two-way communication lagula dhaqmo, mid adna aada raadayn karta isna ku raadayn kara. tamaaneed waxa weyaan qof bini aadam uu ahaan jiray inaad qof bini aadama la saaxiibto, la joogto, nolosha la wadaagtid.
isna uu wax kuu sheego adnaad wax u sheegto oo wada xidhiidhaan israadaysaan. waxaa kaloo jira bay yidhahdeen jaliis kale, saaxiib kale oo isagoo ah bay yidhahdeen one way communication. isagunbaa wax kuu sheegaya, isagaa kula talinaya, isagaa adigu se waxba uma sheegi kartid. kaa one way communicationkee saaxiibka noocaasi bay yidhahdaan laftiisay qaybiyaana midi waa saaxiib saamit, waa ka aamusan, waxa la akhriyo dhan waa saaxiib bay yidhahdeen aamusan. waa buug, waa jariidad, waa mujallad, waa waxaa la mutaalaceeya la akhriyo dhan, waayo wuu kula hadlayaa oo waxbuu kuu sheegayaa oo waxbuu kugu kordhinayaa oo caqligaagu tashkiilinaya. qofka bini aadamkiiba maaha bay yidhaahdaan ilaa iyo maxay wuxuu cuno iyo wuxuu arkee maqlo ayaad ka samaysan tahay. maskaxdaadu waxay analyse garaysaa, waxay rogrogtaa waa wixii ay maqashay ama se aragtee loo sheegay macluumaad ee kusoo kordhay. marka buuggu bay yidhaahdaan waa jaliis. walidalik baa cabdillahi bn lmubaarak ninkii la odhan jiray imaamkii aimada muslimiinta ee waaweyn ka mid ahaa ayaa waxaa la yidhi, waxay ku yidhahdeen innaka tukhiru ljuluusa waxdak, waxaad badisaa cabdillaahi ibn lmubaarakow had iyo goor keli baad fadhidaa. markaasuu cadhooday baa la yidhi ana waxdi, ma anaa keli fadhiista buu yidhi, ana maca alambiyaai walawliyaai walxukamaai walnabiyi waasxaabi. war anigu waxaan la sheekaystaa la joogaa buu yidhi nebiyada iyo awliyada iyo dadkii saalixiinta ahaa iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii. dabeetana gabay uu tiriyey moxamed ibnu zayad alacraabi nin la odhan jiray buu tiriyo ah walii julasaau maa amilu xadiiahum ulaman ma'muunuuna giiban wamashhada ida ma jtamacna kana xusnu xadiiihim muciinan cala dafci lhumuumi mu'ayida yufiiduunanii min cilmihim cilma maa madaa. yacni gabay buu tirinayaa uu leeyahay anigu waxaan leeyahay saaxiibbaan la fadhiisto oo aanan sheekadooda ka daalin oo caqli badan oo warka lagu aamini karo oo markay maqan yihiin iyo markay joogaanba dad saaxiib wanaagsana. yani maxaan uga jeednaa? waxaan uga jeednaa meesha tan inaynu tilmaamino jaliisku inuu noqon karo jaliis saamita. isna wuxuu kaloo noqon karaa jaliiskan casrigaa maanta ee raadiyow leh, ee t v leh, ee internet leh. dadka barhbaa kuwaa la saaxiiba. qof baad arkaysaa t v intuu subaxii hor fadhiisto maalin dhan un iska hor fadhiya. saaxiibkiisu waa t v-ga, qoladan unbaa wuxu sheegta, ama kubad ha ka daawado ama filim ha ka daawado ama warar ha ka dhegaysta ama wuxuu doona ha dhagaystay. waa jaliisu, waa saaxiibkii, isagaa wax ku akrinaya. idan waxaynu leenahay saaxiibka waagii hore waxaa laga warrami jiro oo qura saaxiibka kan two way communicationka ee labada dhinacba wada hadalku uu ka soconayo. laakiin casrigan dambe saaxiibku anwaac buu yeeshay, marka intaba wuu noqon karaa saaxiibku. marka waxaa dhici kara inuu saaxiib shar wada yahay, sawaan kitaab ha ahaado, buug ha ahaado, t v ha ahaado, jariidad ha ahaado, internet ha noqdo, qof bini aadam oo nool ha ahaado. waxaa kaloo dhici karta saaxiib khayra inuu noqdo. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ina min annaasi naasan mafaatix lilkhayr magaaliqa lishar. ibnu maaja xadiidku sanadka xasankaa ku warinaya say culimmadu yidhahdaan. dadka waxaa ka mida buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam dad mafaatix lilkhayr ah, furayaasha khayrka ah, oo meeshuu joogo khayrun lagu hadalhayo, khayrun layska waraysanayo, wax wanaagsanun adduun iyo aakhiraba wanaag ka warramaya. iyo duul buu nabigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam isla markaana ah magaaliq lishar, waa furayaasha xidha sharkana oo agtooda ma soo maro. akhwatii fi lcaqiida marka waxayn leenahay cumuuman saaxiibku waa kaa qofka nolosha bini aadamkaa wax ka gediya diintiisa, caqiidadiisa iyo dhaqankiisa. walidalik baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa qolo aakhiro calaacalaysa oo ka calaacalaya saaxiibo xunxun ay dunida lahaayeen. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا
يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إلهي سبحانه وتعالى وحلي وحضرك وشكتا ما أنت وظالمك قعنتي سيبتو قنينو فرتدحديتو كقنينو ورندونو يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. جعلان لهاي بل ما نبي محمد عليه الصلاة والسلام جدي سمان راع مالكو على علي دونه تمني دونه يا ويلتى ليتني هلا بيغو كالي ليتني شلاطة إذا لم اتخذ فلانا خليلا. بل ما أنك هبل الله يدعو صاحب كدغني وحكى على يا إلهي آخرت الماما يا صاحبك أدونك مركو جوغي كل صاحبك وايو لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وحي قال لهم يقول جدي ربي سبحانه وتعالى إذا وحين إنه جعل لنا نكور صاحبك سيب صاحبك ونكسرين الاهتمام وبضصين. إلهي سبحانه وتعالى يسوق النبي محمد عليه الصلاة والسلام لحظة يا ربي وحكولي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إلهي سبحانه وتعالى وحو النبي قوت المامي عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. نفتاض واحد كحب استاباء الله سبحانه وتعالى واحد لك شوكته ووقت هذا تقارطه وصاحب لنقطه أيه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كو ربي قد عابده قلن هرئية قلن دنبضة كو لتشوك بالأولى نبي محمد عليه الصلاة والسلام أصحاب الصفة يا صحابة دي سوى نفسنا إيو داتك خيرك يا عبادة كو مشغول صنع كو كحب نوى إلهي كولي نبي عليه الصلاة والسلام كو رابعين إياه إلهي وجهه سبحانه وتعالى وقلن هرئية قلن دنبضة عابده كوا لا جوغ الله صاحب نقبا إلهي سبحانه وتعالى. وحكى النبي قال له يا إنه كحرمه كوا غافلين تي آخرة بانوه ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الراعي با إلهي لي وهيال وركيسة كوا أنه قلبي قوض حدني قلبي قوض غافل كان نغضي إلهي الذكر يسنوغن كدوهن إن نفتوده وحي دونتين راعي. إذا وحى الله ينوت الماما يا كوي النبي محمد اللي عليه الصلاة والسلام لدقى قرآن وحكروين وقرم يا أهل الجنة نكم إذا ومدى صاحبها ينهد قد دكتونا يراعي ويجد كيسي وضبتنا آخر لقال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظامنا إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. إلهي وكورمي سبحانه وتعالى جنة مركة لقلم من أهل الجنة كم إذا با صحابتي سكال أهل الجنة وحقوق رندونا وهذا حمد بان دوني ده مركة جوغي لها يورن شري ورم ذا ميلاه يواتر ميسنت يوم الدين بطر عبا يمد وركا يواخريات شري ويد وما واحد رميسان تاي مركا عينو دمانو إلا ينبترتيرو إلا نسوان نورين دونو لنا حسابي دورو مساسات رميسان تاي ويقول جري ويد مركا نالين كجوغني بل ما أنت ماشي كجري إلى سوية يبلدنكي وقال أهل الجنة وأن أهل الجنة كم يدوليه أدون كم يتباشري صاحب لا هاجري ويورجري ما آخرت رميسان تاي ينتبك لصوب بعثين دون لصوب صاري دونو إيجين لا حسابي موركا سات رميسان تاي ما أنت نكي ميلو جرب بليا إلى سوية إلهي وحليه فاطلع فرآه في سواء الجحيم وفي صديسا وحقواكي نار الجحيم برتك هذا يسوى قلقلنا يسوى هذا كجرا دبتنا مركز وحده قالت الله إن كدت لتردين إلهي ما كنا أرتمر بدي هلاقي قاعد يقول ما كنا أرتمر يسبهل كجوه أي وحده يا رب كنا أرتمر مر بدي هلاقي قاعد ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين